annaga dagaalkan aan ku jirno waa jihaad fardi aan ogal rabaa qof la leeyahay qof iblaa uga mas'uul ma jirto qof kasto ay naftaada ugu danay dadkiina waxa laga yaabaa dad waalidiintooda 10 iyo dhowr sano ark inay ku jiraan oo hooyadu tay karin oo aaboodu tay karin wax aan haleyseen oo maanta dambiye oo aad gasheen isku ogtiin male waa dukatiin waa soontiin wax maxadiin shariicada islaamka wixii lagu noqay qofku ay muslim ku aheeday waa buuxiseen waa ashaadatiin haddana hooyooyinkiina ma tay kartiin iyo aabayaashiin sababta uu tay karin waxay tahay dadaa waxay rabaan inay wixiina ka faa'iideystaan ay idinka dhaadhacsiin idinku gaalatiin ayaga islaam yihiin islaamatiin kulligeena nahay gaalo ma nihin ma ahaajirin man ahaadoon horta intaas aamina waxaan sameeyaysiin qof loogu daneeha male nin kasto madaxaada meerax ku duubo waay annaga isugu daneehayno waalidkeena ugu daneehayna dhulkeena ugu daneehayna danteena ugu daneehayna diinteena ugu daneehayna waxa la idin rabaa nimankan aan la dagaalayno cadawga saddex siyaabood ay dadku ku haystaan qaar waa dad ka cabsaayo oo iska cabsaayo cabsi min Allah iyo cabsaayo cabsidaas ay ku haystaan qaar waa qaar u shaqeeyo oo shaqaale u aho saas ugu shaqeeyo qaar aan u shaqeynin fikirkooda aaminsanayn laakiin haddana la shaqeeyo sababtu maxay tahay waxay rabaan dadkan inay saan ahaadaan oo dhexdhexda lagu jiro waa dad aaminsan wadankan hadii hal dhinac uu isla maro oo xataa shabaabka wadanka dhan inta qabsado asaga uu wadankan u taliyo inay joogi karin hadii shabaab inta la saaro dawladu qabsatana aan joogi karin dad aaminsan oo waxaa jiro rabo wadankan in labada dhinac la kala taagnaado oo aad degmada isku gudbi karin oo adii hooyada isu tagi karin dadka saddexdaas ay u qaybsan yihiin cid allaal cindi cabsi ku jirtay cabsi horta Ilaahay yaa kugu leh qofkii shaqo waxaas ugu jireen waxa laga rabaa shaqo Ilaahay yaa ku risaqo qof kasto oo Ilaahay abuuray asaar risaqo qof kasta ajal leedahay risaq xalaala oo qof soo dilahayn Ilaahay ku siiha inay horta ka tanasusho qofkii ugu jirtay wadankan iyo dadka dhibaatada ku jiro NGO u heedo ka faa'iidaayana waqtigeedu waa dhamaad qofkaas faa'iido dambe kama raadiyaysa dadkan iyo dalkan dhexdooda annaga waxaan rabnaa waxaan sameeyno horta Ilaahay dartiis ina qaadatiin inaan u sameeyeen saan hore isugu soo sheegnay dagaalkan dawladda Soomaaliya federaalka ayada ku baaqday ayada dhahday wadankan cadawga dadkan heystaa laga kiciyo annaguna dadka ugu baahida badan ah qoys ahaan oo dad waxaan nahay aanan 1 kiiloomitir oo dadkooda joogan oo soxor ahayn adduunyadii oo dhan waa ka harnay waxbarashadii aan ka harnay caafimaadkii aan ka harnay wax aan noo badbaadsan ma lahan gabdheena dhiigbaxay u dhintaan meelay ku dhibaataysan yihiin waalidiinteen uma tagi karno waxaan uga bixi karnaa hal mabda oo mid ah inaan helno halkaas mabda oo mid waxa way dagaalka inuu kulligan waajib nagu yahay oo qof loogu daneeha aysan jirin yaana la idinka dhaadhacsiin qof aan mushaar idinku soo qaatay qof mushaar soo qaatay male hadda markay maayeen qof qasab lagu keenay ma jirto meeshaan qof kasta damiirkeeda keenay xanuunkaas meeshaan wada keenay anaga meeshaan waxa u imaanay oo daneen u soo deynay xanuunkan waan idin la joogaynaa horta walaalayaalow waxaan idinka rabnaa oo dhammaanteen isku dardaarmaynaa inaan dagaalkan uu yahay dagaal jihaada oo cid loogu daneeha aysan jirin inaan dhulkeena inaan tagno ay naga go'an tahay wixii dawladda xaggeeda naga jiro waa imaahayaan laakiin marna ha ku fakarinina qof ay idinku daneysay mid kale qofka bini aadanka waxa uu aaminsan yahay muhiim ah hadii adiga aaminsan tahay waxaan aan sameeyay inay wax sax yihiin saxday noqayaan Soomaalidu waxay ku maamaadaa geed madow wixii aad ka niyeysataa ka heshaa hadaa geedkaas bahal ka dhigtid caawda waa ka cabsooy bahalka ku ahaa haduu geed inuu yahay aamintida hargashidna waa hargal kartaa waxaan aan ka shaqeeyayna hadaa aamino waxaan ku guuleysayna oo dadkeena iyo dalkeena ugu daneeyeen inay yihiin saasay noqayaan hadaan aamino waxna la isticmaalayo oo nagala daneysaayo siday noqayaan cid naga daneysaysa ma lahan marka waxa la idinka rabaa niyada yaa la idinka xumeyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala cid allaale cid ka shaqeeyayso waxa aan ka shaqeeyaynin waxa ahayn Ilaahay waxa uga tuugaynaa inuu far iyo suul nooga dhex saaro cid dagaalkan siyaasadeyso Ilaahay far iyo suul ha nooga dhex saaro cid dadkan isku dirayso ciday doontaa ama shabaab ha ama kuwa kale u shaqeeyaha ama kuwa ay iskood u shaqeysaa ha ahaadaan Ilaahay naga dhex saaro waxaan ballan Ilaahay ku qaadaynaa hooyaan ahay aniga wiilashayda tihiin adeeradayda tihiin walaalahayda tihiin waxaan ballan Ilaahay ku qaadaynaa inaan la isticmaalaynin inaan la ku daneysaynin waxaan inay dan caam yihiin war dadka asaageena waa aragteen adduunyada federaal ay noqoto federaalna waxa waa intee degan tahay hadaada meel deganaysa wax ku yeelee qofa horta dhul haysan wax ma leedahay ma lahan waxa lagu leeyahay waxa lagu siiyay waxaad meel lagu siiyaa keen war dhulkeena waxooda meel kale lagu qaybiyaa inta boor lagu dhajiyo dadkeena waa u dhibaataysan yihiin anaga marka ma bini'aadanka maan ka aqli yarnahay
ما لح بلودا كنا لنا ودك سجال بلودا كنا شان هو أنا سويدينا وعسبت وحسكين كرو مسلمنا نهاي وهاجرنا وهادونا دجال كان دولة دا كباقي دولة دنيا في الجرب وجودي أنا جهرت واجب كان أنا كو جودنا وأنا جاي نوجو أنت هاي دل كان يدد كان إنا حرينا تعرف مسكو وافقنا مسكو أجنه بل نلاقي متى غير هبل يغير هبل مدة من أنا قد هال هبل أنا لاليال وده أنا سود وي وديجان كان دكتور دبعتوين فربنا نسومرين عدو جو إسكو حرية إن أنا قد أتكيسنو أو باهدو أتكيسنو أو كلال كو أتكيسنو أو أن إسحرينو الدنيا قف كستو عركتت أو مال في عن جوكتو دبعاتي أسوء أتكيسن ريسك بدن يسومر كبعد يقوليسد قف مجرت أيضا جورجاد إسكت جفت جوليسه مجرت قف أيضا جورجاد إسكت جفت هرمر جاريس مجرت وحال الربا هدي قاركان لنتو قاركان نجوليستو وافقين sababtoo waa dhimahaynaa hal laha anoo kala maalaha ruux ku dhimatay sabab ilaa laamiraha intuu dhaxeeyo aniga waa u socdo meesha qorxu ka dhaco wasaaradda waxbarashada u socdo ilaahay iga celitayda ma ahaan aniga isma celi kari waa tagi lahaay waa dhima lahayd waqtigeyga soo dhabaad laakiin waqtigeyga dhiman waa ina aamino ina muslinahay waqti leena waqti hadaan leenahay waqtigeena aan u dhibahaynaa dhulkan waa nagal gardareeya jihaadaan nahay annaga war qof dambi ilaahay diintiisa looga baxo inay gasho aaminsanaan ugu jirto saamarka dilna ugu xukumi kara anaka dilka shariicada islaamka waxa uu ku xukumo waa la yaqaan waa saddex waxyaabood bis qof disho qofka diinta ka baxdo qof weyn oo meer soo maray oo sinayso war anaga diinta islaamka kama bixin qof dishana xukun kala waaye dadkay dileena ka macaamilayaan wixii isdilo oo shariicada islaamka aba ogolba inay ka macaamilaan dadka day isdilaan haday macaamilku isku fahmi waaye kadib wax la dilo wixii kalena waa ayagana si kale loo xukumay maxkamada ay leeyihiin marka anaga islaama oo diinta ka bixin in dil lagu xukumo oo anagana ogolaano sax maaha walaalayaalow ilaahay aa ugu cabsano ilaahay aa ugu dhawaano waa mahadsantihiin dhiigiina bixiseen nimankaas tabar ma lahan waa jabeen waa ka adagnahay intaas aamino aan isku tashano oo aan ku fakarnay inaan dhulkeena xoreysano ilaahay hadoo idmo dhowrka bariyo soo socdo kadib barxadda aan isku warseen ay ahaato tan ceelaf weyne oo ishaag ceel qori weyne oo buxo inay noqoto taas had ilaahay nooga dhigo walaalayaalow mursado dhan waa soo socdaa qof gadaal ma jirayso waxay mareen marna dhoobada marna dhagaxa ninka dhuuntow dhibka diidow dhaxal ku mali